magaaladani Kalabeed oo ah magaalo aad u ballaaran isla markaana ay ku dhaqan yihiin shacbiyad aad u badan ayaa waxay guud ahaanba ka ardan tahay baahiyaha aasaaska arrimaha bulshada oo aanay 23 sanadood ee Soomaaliland jirtay ay ka marnayd magaaladaasi ku dhaqan magaalada Kalabeed oo arintani ka hadlay ayaa sheegay inay gugan maanta u soo tafaxayteen sidii ay u heli lahaayeen baahiyahaasi baahiyaha maanta Kalabeed ka jira waxa weeyaan kuwa imiga si toos ah u soo ifbaxay weeyaan marka waxa weeyaan dawladdu hadii markii dil dhacawn haymanaysa Kalabeed waxaanu leenahay ha iska joog horena waxa u tiri waxaanu ka sameeynay saldhig boolis baan Kalabeed ka sameeynay waana beentaas horta meeshan joognaa waa Kalabeed waa xarunta labaad ee dhaqaalaha ee Soomaaliland waa bilaa caafimaad oo dhakhtar ma laha bilaa station ma ahin maalinta balaaya ay dhacdo oo ciidan la noo soo diro kii oo kobcay oo uu kordho oo magaaladu ay 1000 bush aan abaf ay noqotay kun qoys iyo wax ka badan ay ku noolyihiin waa lagama maarmaan in saldhig boolis ay yeelataa ma aha labada askar ee 500 milyan ee Soomaaliland inay ilaaliyaan lagu talagalay saldhig waxa jiray la loo dhagax dhigay oo aan dhulkii Kalabeed ahaan muwaadin reer Kalabeed oo ku deeqay oo ilaahay miisaaniyada 2013 ka ay ku jiraan gudoomiye taasina way beenowday waa 2014 maanta ku jirnaa waxa kale oo ballan qaadeen town planka magaalada inay 2013 ka iyadana dhameystirayaan taasina been ma noqotay wax qabadka dadka waxba loo qabtay la leeyahay dadka reer Kalabeed miina kamid ahayn xaq sameeyeen u lahayn maamulka magaalada Kalabeed oo isaguna dhinaciisa arintani ka hadlay ayaa waxa uu yiri waxyaabaha laga maarmaanka ah bulshadu ay u baahan tahay aan laga maarmi karin in la dhiso saldhig boolis number 1 baahiyaadkeedu u farabadan yahay magaalada sariimad bay u baahan tahay kawaan bay u baahan tahay toonbaleen bay u baahan tahay adeegyada gaarigii xashiisha ka qaaday bay u baahan tahay adeegii bulshada dhan bay u baahan tahay waxaan ku celcelinayaa mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba in ay dhamaystiraan ballanqaadkii saldhigga booliska ay dhagax dhigeen ma aha markii ugu horeysay shacbiga reer Kalabeed ay ka hadlaan arintani balse waxay sanadihii u dambeeyay ay marar doora baaq u diran xukuumadda Soomaaliland laakiin baaqyadaasi kala dambeeyay cid dhagay jalaq uma siinin Mukhtaar Nuux Ibraahim Hon Cable TV Gabiley